kusoo dhawaada walaalayaal mar kale iyo xiisadeena saddexaad ama cashirkeena saddexaad waxaynu ku qaadan doonaa qaabka loo verify gareynayo YouTube channelkaaga haddaba qaabkee ayaad u verify gareynaysaa ama hab nooceeya ayaad u verify gareynaysaa marka talaabada koowaad ee qaadi doontaa waxay noqon doontaa si aad YouTube channelkaaga u verify gareyso waxaad imanaysaa youtube.com ayaad ku qoraysaa halkan sare ee searching saad arkayso youtube.com marka aad ku qorto kadib bogon baa kuu soo baxaya waa in kadibna markaad youtube.com ku qorto bogod markuu kuu soo baxo waxaad riixaysaa halkaa yar ee sawirkaagu yaalo ama kurka yar ee sawirka channelkaaga saaran uu yaalo aad soo furaysaa intaa kadib waxaad ka xulanaysaa YouTube Studio baad ka xulanaysaa YouTube Studio intaa kadib YouTube Studio markaad xulato YouTube Studio markaad doorato waxaa kuu soo bixi doona bogon oo kale after wareeg marka bogon oo kale kuu soo baxaya saad arkayso waa studiohaagii weeyaan halkan sawiradii muuqaaladii ugu dambeeyay baad ku arkaysaa halkan waxaad ku arkaysaa tusaale ahaan analyticska waxay cidda ku daawatay tusaale ahaan waxyaalahaas oo dhan faahfaahin guud baan hadhow ka bixin doonaa laakiin qaabka loo verify gareynayo tusinaya kadibna maxaad taabanaysaa meesha settings ay ku qoran tahay ama grand tire wareegsan baad soo furaysaa settings meesha ku qoran tahay intaa kadib settingska marka aad xulato waxaad kasii dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay channel meesha ay ku qoran tahay ka xulanaysaa channel marka aad taabato waxaad kasii dooranaysaa feature eligibility halka ay ku qoran tahay meesha yar baad taabanaysaa feature eligibility meesha ku qoran tahay ayaad taabanaysaa kadibna maxaad kasii dooranaysaa halkan ayaad ka xulanaysaa feature required phone marka inaad telefonkaaga ku verify garayso ama aad ku xaqiijiso ayuu ka rabaa lambarkaaga gacanta marka maxaad leedahay halkaa yar baad soo furaysaa ishaayar markaad soo furto hoos baad usoo daadegaysaa halkaa verify phone number ay ku qoran tahay ayaa taabanaysaa markaad intan verify garayso waxyaalahan muhiimka baa lagu fasaxaya video longer muuqaalada 15 daqiiqo ka badan inaad soo gelin karto channelkaaga ayaa lagu ogolaanayaa custom thumbnail inaad thumbnail soo saaran karto thumbnail kale thumbnailka waxaa la yiraahdaa sawirka muuqaalka ka soo muuqanaya dusha sare ayaa thumbnail loo yaqaana marka live streaming inaad live ka soo gasho ayaa lagu ogolaanayaa YouTube live ka marka sidoo kale appealing content ID claims marka haddii tusaale ahaan wax qaldan aad soo geliso oo kale inaad appeal ka qaadan karto ama aad ka qaadan karto racfaan ayaa lagu ogolaanayaa marka featureskaas oo dhan baa ku furmaya marka verify baad leedahay si aad u verify garayso bogon baa ku soo baxaya marka wadanka aad joogto ku sheegaya Soomaaliya ayuu ku soo saaray hadda saad arkayso Soomaaliya markuu ku soo saaro waxaad leedahay ma call ahaan baad rabtaa in lagu verify gareeyo mise waxaad rabtaa text ahaan marka text fariin soo diraad leedahay kadibna lambarkaaga aad gelinaysaa tusaale 65 furaha uu geliyay oo reer furihii waa la geliyay marka kaliya waxaad gelinaysaa furaha shirkadda telefoonka isticmaalayso 6573026447 tusaale saasoo kale gelinaysaa intaa kadib maxaad leedahay submit baad leedahay kadibna fariin baa kuu soo dhacaysa 6 lambar ah marka fariinta 6 lambarka message-kaaga lagu soo diray telefoonka halka gelisay message-diisa ayaad soo furaysaa marka fariinta marka lagu soo diray waxaad gelinaysaa 6 lambar marka 6 lambar baan halkan gelinayaa si aan u verify gareeyo waxaan gelinayaa tusaale ahaan 261827 ayaan gelinayaa marka intaa kadib marka aan geliyo submit meesha yar ee ku taalo ayaan riixayaa meesha yar ee submit ay ku taalo riixayaa intaa kadib saasuu igu verify gareysay congrats your YouTube account verified YouTube channelkaygii uu verify gareysmay already waa dhan weeyaan intaa kadib maxay igu xiga duban isaga noqonayaa YouTube channelkaygii saad arkayso enabled buu halkaa yidhi uu ii verify gareeyay muuqaalada 15 daqiiqo ka dhaadheer live streamkii waxyaalo badan baa ay furmay hadda marka intaa kadib maxaan leeyahay inta kadib channelka waxyaalo yar oo kale ku saabsan baan rabaa inaan ka bedelo kadibna isla halkii hal adoo taagan waxaad leedahay aan waxyaalo kale ku tusayaa wadanka waxaad ka dhigaysaa America si lacag samayntu kuugu furanto markasta hadhow toole wadanka waa inaad ka dhigataa America marka YouTube Creator Studio marka timaado settingskan iyo si aad wadanka u bedesho settingskaas tagaysaa inta kadib settingska marka aad tagto waxaad leedahay channel baad dooranaysaa channel marka aad doorato waxaad leedahay waxaad dooranaysaa countryga dooranaysaa countryga United States baa ka dhigaysaa hoos daadig meesha yar baad hadda furay isha yar baad furaysaa markaad channel timaado
basic info baad taabanaysaa kadibna ishire baad soo furaysaa. ishire marka aad furto America aad ka doonaysaa United States United way ugu dambaysaa xagga ugu dambaysa gashaa inta badan waa ta US marka way kala duwan yihiin. United States taasaad doonaysaa United States qoraalka halkaa ku qoran baad xulanaysaa United States baad taabanaysaa. intaa kadib maxaad samaynaysaa saad arkayso muxuu ka dhigay United States buu wadankii iga dhigay kadibna safe baan le. intaa kadib wadankiina waan bedelay lacag sameyntuna way ii furmaysaa markaan wadanka bedelo. marka aad baa mahadsantihiin aan sharaxaad yar idinka siiya intaana muuqaalkan ka bixin waxyaalahan halkani waxa weeyaan waa creator studio qofka muuqaal soo saaraha ayaa loogu talagalay. halkan lacag sameynta weeyaan, halkani waa commentiyada aad ka akhrisanaysaa, halkani waxa weeyaan playlistigi, halkani waa dashboardkii oo dhaqdhaqaaqyadeedii ugu dambeeyay baad kala soconaysaa, channel analyticskii dadka daawaday waxyaalahaas oo dhan. marka lacag sameyntii ayaan noogu xigsin doonaa hadda wixii ku xiga oo qaabkii AdSense loogu xidhiidhinayay ayaan idin tusin doonaa. muuqaalkan ku xiga ayaan idinku tusin doonaa. aad baa mahadsantihiin intaana qarkaana qardhe waad ila fahanteen. aad baa mahadsantihiin. nabadgelyo.